ololaha doorashada isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada Somaliland oo maanta oo axada ku beegnayd maalintii uu xisbiga UCID ku soo bandhigayay dhoolatuska ololaha tartanka doorashada musharaxiintiisa ayaa waxa wacdaro ka dhigay magaalada Allay Baday taageerayaasha musharax Cabdi Yuusuf Goolle Cabdi Iid waxaana isugu soo baxay kumanaan qof oo taageerayaasha musharax Cabdi Yuusuf Goolle oo ka sharaxan xisbiga UCID una tartamaya golaha deegaanka degmada Gabiley UCID weeye doorkani UCID weeye doorkani UCID weeye doorkani UCID baa lagu doogsadaa warun UCID baa lagu diirsadaa warun UCID baa ku dadaalaysa aqoon kaaga dooro dadweyno codkaaga si dadweyno codkaaga si taageerayaashan musharax Cabdi Yuusuf Goolle oo iskugu jiray qaybaha kala duwan ee bulshada caruur iyo ciroolaba rag iyo haweenba wiilal iyo gabdho kuwaasi oo dhammaantood sitay astaanta lambarka musharax Cabdi Yuusuf Goolle oo astaanta lambarkiisu yahay 103 iyo boodhar ay ku yaalaan sawiradiisu oo ahaa kuwii ugu badnaa ee nooceeda ah taageerayaashan musharax Cabdi Yuusuf Goolle oo watay gaadiid tiro badan iyo socodka dadweynaha oo u shaacirka loo tuuro aanay dhulka ku dhacaynin isla markaana ku dhawaaqaya halkudhagyo ay ku taageerayaan musharax Cabdi Yuusuf Goolle ayaa iskugu soo xoomay fagaaraha khayriyada magaalada Allay Baday musharax Cabdi Yuusuf Goolle ayaa kumanaan kan taageerayaashiisa ah uga mahad celiyay sida ballaaran ay iskugu soo baxeen isla markaana ay taageerada miisaan kale ula garab istaageen ilaahay baa mahad leh ilaahay noo suuro geliyay in maanta ay noo bilaabanto tartankii doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka alxamdulillah ilaahay baa inagu simay inaan mar labaad u tartanno xubinnimada golaha deegaanka ee degmada Gabiley ujeedada aynu ku tartamayna waxay ahayd hadafkeenu wuxuu ahaa fagaarahan maanta aynu taagannahay waa fagaarihii layga doortay badoorkii horena waxay ahayd inaynu horumarino bulshadeenna inaynu horumarino qarankeenna inaynu horumarino dadkeenna inaynu xoojino isku xidhka bulshadeenna inaynu sare u qaadno tayada dadkeenna iyo dalkeenna alxamdulillah ilaahay baa nagu guuleeyay muddada 8 sano saayidka ahayd ee aan ka mid ahaa hoggaanka sare ee golaha deegaanka ee degmada Gabiley oo run ahaantii ay guuli tahay aniga oo maayir ku xigeenkii magaalada Gabiley in mar labaad ay dadka reer Allay Badan guul u tahay inay ii doortaan inaan cumaamadaan inaan mar labaad u tartamo jagada xildhibaannimada golaha deegaanka degmada Gabiley waxa ilaahay mahadiya in maanta ay noo suura gashay wadada agteena maraysa maalin maalmaha kamid ayaan cisho dhaw dib u eegay memory inaan ay duubtay waxay tiri maalinta halka taagneed bay tiri wado waxa golaha maanta la dooran Cabdiidka wuxuu ka yahay ciidda wadooyinka ay noo sameyn doonta inantii waxaan leeyahay samada furneed oo la naga aqbalayo wata wadadii laamay Allay Baday ay dhaxmarayso ee wajaala dhaxmarayso ee arabsiga dhaxmarayso ee Gabiley haadad waaweyn oo aad u waaweyn ay dhaxmarayaan maanta waxaan u baahanahay inaynu kor u qaadno bulshadeenna waxaan dadka reer Allay Baday ka doonayaa inaad iigu caawisaan mar labaad codkiina iiguna hiilisaan si horumarka bulshadeenna una halka kaga dhawna dib uga dhicin diid ma soo saarayna maanta ninkii wax qabadkiisa aynu aragnay umaynu wax u qabanaynaa umaynu soo saarayna maanta hadii Allay waxa kale oo halka ku ballan qaadaynaa maalinta 31 May inaynu golaha deegaanka Cabdi Iid Daahir ugu codayno
diyaar baan u nahay waana ugu ridaynaa haddii ilaahay yidhaahdo insha allah ilaahayna uu la qaban doona uuna ku soo bixi doona musharax cabdi yuusuf goolle ayaa sidoo kale u ambabaxay deegaanka geesdheere halkaasi oo uu kala kulmay soo dhoweyn aad u ballaadhan shacabka deegaanka geesdheere ayaa si weyn u soo dhoweeyey musharax cabdi yuusuf waxayna sheegeen inay codkooga siin doonaan maalinta 31 May ee codka loo dareerayo halkan waxaanu ku soo dhaweynaynaa dhibaanka golaha deegaanka ee Gabiley Cabdi Iid Yuusuf Goolle dhammaan inta halkan joogtaa waa dhammaan geesdheere degmadii geesdheere waxay aad iyo aad u soo dhaweynayaan Cabdi Iid si ay codkooga iyo taageerada u siiyaan waxaanu nahay dhammaantayo ninka taageeradiisii baan nahay oon soo dhaweynaynaa Cabdi Yuusuf Goolle yaanu soo dhaweynaynaa allah nala qabtee annagoo reer geesdheere ah taageeraha isaga ayaan u muujinaynaa codkanaanu siinaynaa isku soo wada duubo taageerayaasha musharax cabdi yuusuf goolle ayaa dhoolotuskii ugu ballaadhnaa ku soo bandhigay magaalada Allay jidadka magaalada Allay baday ayaa u xidhnaa taageerayaasha musharax cabdi yuusuf goolle kuwaasi oo tusiyay kalsoonida iyo taageerada ay u hayaan musharax cabdi yuusuf goolle waxaanad moodaysay taageerayaashani musharax cabdi yuusuf goolle inay taagan yihiin wuquuful carafaha حجك وعبد الرزاق أحمد هيان الكعسي قبنيمة تيفي دقمة علي بضي